Cuqaasha guurtida waxgaradka dhalinyarada iyo xildhibaanada beesha Bohod oo maanta shir jiraayad ku qabtay gudaha magaalada Ceelaf Weyn waxay kaga hadleen hadallo ay shalay warbaahinta mariyeen qaar kamid ah odayaasha Bohod kaasoo ay ku beeninayeen suldaan beesha Bohod dhawaan ay si wada jira u shaaciyeen caleemasaarkiisa isla markaana suldaanka soo xuleen dhammaanba beelaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin beelaha Bohod taasoo ay ku tilmaameen waxba kama jiraan waxna aan u dhiman caleemasaarka suldaanka sidoo kale waxay farhiin u direen beelaha dariska ah ee ay wada degaan iyo xukuumadda Soomaaliland farintaas oo ahayd inay ka soo qayb galaan caleemasaarka suldaan Faarax Ducale Cali Ciid oo caleemasaarkiisu dhici doono 10 bishan aynu ku jirno ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay cuqaasha waayeelka guurtida xildhibaanada iyo dhalinyarada beesha Bohod waxaana yiraahdeen halkan waxaanu ka sheegaynaa oo u qabanay shirkan jaraa'id iyo mugta iyo miisaanka baa leh واتي مقالة علف وين وشاعي سلطان فارح دعالي علي عيد وعلى مسار كيسو يهي بيشة توبان كيدا اينو كجرو مدادي لقو دواغي كو دواغي باشا بهود إنه سلطانك على مسار ايسو مدادي واسيدي دي سيدا سا ارقوينك الدالبادا كوي منايا على مسار كنا واسيدا قايبك اوضيا كميدا وايالك بهود وشالي يدي سلطانك waxba kama jiraan suldaanku waa jira waa sida loo shaaciyay caleemasaarkiisuna saas uu ku dhacay xukuumadda iyo cidii aanu ka dalbano caleemasaarkana sidaas ay ku imanaysaa waxaan leenahay wixii hadalka ay yiraahdeen waayeelku ama gudidii Bohod qayb kamid ay yiraahdeen suldaanka ma ogin inaan ogeyn suldaanka ma jiro waa jira si haddii waa jira على مسار كنا ومدديسي الحكومة السياسة نوشينا تتكلم ردرس كان السياسة نوشينا وحيد إحدى Bohod وضوضوا عنه أفكي وكلا جدسنا هذا هدان ما يبغى وضع هذا البان يسقون نغنينا عنه قصة حينه وحي نجحنا وحنا لا يعني رجع شارع هاي نرمي وجيسين وردير بلينا وجيسية كسر قال على مسارك وأنا اللي يدكسر دويني إياه si mugleeya miisaan la leeydi ku soo dhaweynaya suldaankii la shaaciyay wiiga horaantiisii tayeyntiisa iyo caleemasaarkiisa iyo shamiraadiisa beeshu u qabto baahida suldaanka ay u qabtay ayaanu saxaafadan u qabanay shalay odaya hadlay oo beesha Bohod kamid ahaa sidii soo dhaweynayna waxay ka cabanayeen talada nalama soo ogeysiin marka hore dadku meel kuma wada dhamay miisaaniyada iyo aqlabiyada iyo fadhigu halku joogaaba wax shaacisa ee talisku fadhiyo oo waxa la yiraahdaa gadcasto halka reerka u fadhidaaba taladu ka fusha talada lagu shaaciyo taladii gadcasta ee standardka degmada Ceelaf Weyn fadhiday ee qusulada waaweyn hatii ay shaaciyeen suldaanku wuxuu ahaa xildhibaanadii hore ee 2005 la doortay shalay waxaan ka maqlay odayaashii niman 30 sano dalka ka maqan bay ahay markii xildhibaanada dambe la doortay 2012 booqashu ku gaaray geeyga Yurubta kadibna hadda 6 bilood buu joogay arrimaha nabaddu door ka soo qaatay markii si badan loo eegay oo wafuud badan iyo qaybaha bulshada ee kala gedisan ka tashatay waxa la isla gartay muddada uu nabadda daadihinayay doorkiisa hore xildhibaannimo doorkiisa hore bulshanimo nin maanta midnimada beesha Bohod iyo midnimada beesha Biciide iyo standard beesha habar lamaan oo suldaanka guud u yahay oo uu beel hooyadii ka soo jeedo beel aabii ka soo jeedo marka la leeyahay habar lamaan ayaa soo la fagurtay insha Allah muddadii ay ku akaydna waanu caleema saaraynaa ducada waa lagu tugay beelaha gobolkan haday tahay beelaha hartiya sanaag bari iyo beelaha isaaq cid wal iyo beelaha gobolka Togdheero waliba ergooyin ka imanayaan ergooyin badan baa ka soo qayb galay odayadii shalay hadlay aynaga naga mid aha waxaanu leenahay xafladii horena ku soo dhawaada tan ku soo dhawaada caleemasaarkana ku soo dhawaada taasi waa ka Faarax Ducale 30 sano maqan ma ahayn jaaliyadana annaga u yeedhanay nimanka qurba jooga lagu sheegay annaga u yeedhnay markaanu talada la fagureyno noo kaalay dabada markaanu la fagurnay ayaanu isla qaadanay bahana waa u dhamay arrin baha la fagureen aan xildhibaan laga tagin oo qurba joog laga tagin oo qoyahan laga tagin oo caaqil laga tagin bayahay odayada waa la dhaqdhaqaajiyay meel wax laga dhaqdhaqaajiyo dawladuna ay taqaaneen wax laga majara habaabiyo annaguna aanu naqaan ilaahay soo hadeeyno leeyahay laga dhaqdhaqaaji chief caaqilka shalay wuxuu yiri kuwa maqana chief caaqil baan kuwa joogana chief caaqil waa hawshii ugu horeysay hadii uu TV ka doorbiday oo isagu halka ahayd inuu isu keeno wixii qaldan iyo wixii waxaysan
oo miiska wada hadalka ilaa waa hawshii loo doortay dhaqanku ahaaye uu isugu keeno oo wixii khaldan ku soxo qof kastana ku raali geliyo haddii uu dee TV ka doorbiday iyana uu ku mahadsan yahay hadeerna waxaan leenahay chief caaqil halka ma ahayne halkii ugu wanaagsanayd in miiska wada hadalka la isugu yimaado oo dadka aad isugu yeedho oo adigu u fadhiisato oo mid walba taa ii kaalay bay horta bahashu kulli sharafteeda iyo qiimaheedu ahaa hadeerna waxaan ku leenahay ku soo noqo halkii aad lahayd ilaahay ha ku garansiiyo dadka isugu keen suldaankanuna waa mid beesha bohod u dhan tahay waa mid loo wada diyaar garoobay waa mid la soo wada hambalyeeyay haddii ilaahay garto idamka ilaahay baa iska leh wuxuu dhacayaa xilligiisii dowladdan iyo munaasabadda waxaanu isugu nimi inaanu ka caddayno in suldaan faarax ducaale cali ciid oo aanu 26 bisha saacinay inuu yahay suldaanka guud ee boosha bohod 10 bishana la caleema saari doono uu sidiisii yahay ergada iyo Somaliland iyo cid imanaysaana waxaanu leenahay welcome soo dhawaada taasi shalay ka hadlayay miidiyaha ee bohod ee lahaa lislama ogeyn waxaan leeyahay lisla ogaaye dib baax loo dhaqdhaqaajiyay odayaasha imaaraadka iyo meelun baa dee looga gacan taagay iyagana hadeer arrintooda ma xuma wada hadal baan ku dhamaynaynaa way isugu imanaynaa caleema saarkuna saas ku dhacayaa cid isoo taagaysaana ma jirto hadday jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda tahay iyo hadday shacabka tahayba waxaanu leenahay gacmo furan ku soo dhawaada caleema saarkuna waa xilligiisii bisha waxa la shaaciyay suldaan faarax ducaale cali ciid runtii waxa shaacisay beesha bohod uma kala maqnayn beel bay heedu dhan soo la fagurtay dhinacyo badan ka soo eegtay arrinkiisa muddo bilaa u fadhiday isla garatay inuu noqdo ninkii nabadda inta ka hadlay dhamaystir odayaasha shalay hadlayay waa runtii waa odayaasha waa reerka qaar baa jiray daanu suuraysanay shalay markii ay hadleen war arrinta maxay idin geeyay hadaynu ahayn raggii soo xulayba suldaanka soo xulay waxa war arrintu kalif beeyay sida qorsho ma ahayn qorshe aan anagu wada nabi ilaahdeen inta taana waskaga ogolla waxaanu leenahay ta dambe war sidii aynu soo xulanay suldaanka aynu isla garanay aynu isla qaadanay aynu isla ogeyn ayuu ku dhacayaa caleema saarkiisu odayaashii reerkana waa tihiin maadaama intii badnaydba joogto waxba inooma aha fikir meel kale naga yimaada waxaan leeyahay caleema saarkii ka soo qayb gala sharaf baa ku mudan tihiin ninkii maalintaa ka maqan ayuunba beeshu dee arki doontaa markaa waxaan leeyahay ninoona karaama seeka ka qaadin bohona waa mid nin kastoo been kuu sheega oo yidhaahda cidi uma dhamma xaqiiqadu waa midkaa weeyaan waa la og yahay waa urursan yihiin arrin taladoodu meel bay ka go'daa guddideedii iyo xildhibaanadeedii iyo uqaasheedii waa halka taagan waxaan leeyahay nin demeel nin isagu burushtaa isaga yaqaan daamaan xildhibaankii degmada Ceelfeen laga soo doortay ee golaha deegaanka khasab bay u tahay haddii kuwa hore hadleen iyo haddii kuwa dambe hadlayaanba inaan kulli aan hadalka ka idhaahdo waxaan filayaa qolyaha hore xildhibaanna kama idin arkayn dadkii la soo doortay baa annagu ay soo doorteen kuwa xaggaa jooga iyo kuwaniba xogee waa ka yar hoostay inay maaragtay hadal ka daba kacaan bahana ma lahayn hadal ay iska daba yiraahdaan oo masalan deen noocaas oo kala ah waxbaanu shaacinay suldaan faarax ducaale la shaaciyay way hadleen runtii igu diidi maayaan dadkoo leh way og yihiin intii tubnayd meesha in walba tuulo laga keenay dee magaalada ma ahayn runtii dadkii noo qaabilsanaa bay ahaayeen xag hamiga iyo dhinacyada anoo ah boqor maxamed jaamac wakiilka ah waxaan garanay haddaanu baxanahay inaanu caaqilka aan doorano suldaanka doorano waayo bohalka u dhin cid ka maqan ma jirto dadwada waa fadhiyaan waa la isku raacay beelaha kalena deganna waa u raacay wadaxdan ka soo gurnay waa soo dooranay waana cid ka horkaban kartaa ma jirto toddoba oday nin baa beri ku heesay talana way isku raaceen raggii shalay hadlayay waxay doonayaan inay turbuqda kala tuuraan ka yeeri mayno waxaan leeyahay kala tuurmays waxa weeye subag meel ku daatay sina uma xumaadee waa heshiinayaan waxaan u sheegaynaa bulshada reer Somaliland suldaankan waxaan u saacinay horaan u saacinay hadalka dambena waxaan nagu kaliifay odayaal annaga oo salayto media ka hadlay dibaato ma jirto waa odayaashayadii xoogaa yar oo media un baan ku diidnay
waxay ka yara cabanayeen suldaanka maanu ogeyn suldaanka bohoodhan waa ogaayeen beelaha dariska waa ogaayeen suldaan muddo far badan laga shaqaynayay buu ahaa odayaashana waxaanu leenahay odayaashadii baa tihiin xafladda caleemasaarka ka soo qayb gala wixii khilaafa ee sheeganaysaan waxaa ka yara wanaagsanaan lahayd inaanu miiska wada hadalka isugu nimaadno suldaanka waa la iclaamiyey ilaahay baa doortayoo waa soconayaa annana waa dooranay odayada waxaan odhan lahaa war ninkanu weliba ma aha kuwii nabadda dilaali jirayna ma aha daanahoo si habsamiya iyo nabadgelyo wax u wada odayadii shalayna waxaan odhan lahaa odayaal dee bahaa tihiinoo waa yeelkii bahood baa tihiin tareenkuyuu idinka tegin wuu dhaqaaqayaa tareenkuyuu idinka teginoo soo fuula ninkii xil haya ee xil reerku wato dee shiidow adigaba kaaga waa la shiidayaa tusaale jiif caaqilow annaba shalay adiga kuma wada dooran haddana maalin qudha kuma annaan maagin in shalayto aad fagaare istaagto aad tidhaahdo suldaanku ma jiro dee jawaabta kugu soo baxaysa adda ma jirtid wey odayga garwadeenka ah ee imaaraadka jirana shaqaaqada naga daa waxaanu leenahay shaqaaqada naga daa oo reerka shaqaaqada ka daa oo reerka haddii alla ka dhigo barnaamijkan ah hagardaamada ka daa oday reerkaabaa tahay waxaa soo mooshin iyo dhibaatooyinana adaa ka dambeeya waxaanu kaa codsanaynaa istaaqfuranlaysoo dadka dhibaatada ka daa waxa weeye shir jiraayid qabatay aad iyo aad baan u salaamayaa run ahaantii wuxuu daaran yahay dee odayadii shalay hadlay waxa weeye runtii waxaan leeyahay arrintaa aad ka hadasheen waxaa ka fiicnayd miiska haddii waxaad tabanaysaan inaad noo timaadeen haddana juriyii waxa weeye waanu diyaarinay wax waliba waa diyaar idinkana waxaanu leenahay waxa weeye ninka imaaraadku yaanu idin waalin ku soo dhowaada waxa weeye arrintaa iyada ah sidaasaan waxa weeye insha allah waxa weeye jacfar soo weynaa wax dhibaato iyo wax waxa weeye baabuurayaan ma jiraan buhana waa isku mid waa farta Axmed Mursal Askar Star TV Ceelaf Weyn